maanta waxaanu doonaynaa inaanu samayno isbarbardhig kooban oo gaaban oo ku saabsan waddanka Soomaaliya iyo waddanka caanka Asia ee lagu magacaabo Singapore. Singapore ayaa waxa uu noqday waddanka hantay sheekada qarniga 20aad goortay timaado dhanka horumarka dhaqaale. arrintan ayaa waxa uu horseeday sida la wada og yahay ninka lagu magacaabo Lee Kuan Yew oo isagu saamaxay Singapore casriga inay caalamka ay jiida hore ay ka gasho. ninkani ayaa waxa uu noqday hogaamiye ugu saameynta badnaa ee waddanka Singapore waxaana sidoo kale uu horseed u noqday horumarka waddanka Singapore ayaa waxa uu yahay oo muhiim ay tahay inaan ogaano waddan khayraadkiisu uu qaliil yahay. ninkan lagu magacaabo Lee Kuan Yew ayaa waxa uu usbuucii la soo dhaafay uu ku geeriyooday waddankiisa isagoo 19 jir ah. marka maxaa suurtageliyay in Singapore ay ka soo dhalaasho caalamka intiisa kale? arrintani ayaa waxaa loo aanayaa inay gundhig u tahay laba arrimood waa xagga dhaqaalaha iyo kan arrimaha bulshada. dhanka dhaqaalaha haddii aan ku bilowno, Singapore waxay suurtagelisay suuq xor ah, canshuur hoosaysa, maalgashi madax bannaan iyo qorshe dhaqaaleed xor ah oo dhanka siyaasadda la halmaala. dhanka arrimaha bulshada waxa uu hirgeliyay shaqo abuur dhammaystiran, waxbarasho iyo guryeyn loo dhan yahay. arrintani ayaa waxay tusaale u noqotay waddamo badan oo jaarla ah waddanka Singapore oo Shiinuhu uu ka mid yahay inay amaahdaan qorshaha lagu maamulo waddanka Singapore. dhammaan marxaladahaasi ayaa waxa ay saamaxeen deganaansho siyaasadeed taasi oo loo aaneeyo hogaaminta wanaagsan ee waddankaasi oo suu suurtageliyay ninka lagu magacaabo Lee Kuan Yew. dadka reer Singapore waa dad isku duuban, wax kasta oo loo dhaqaaqana waxay doonayaan inay heer ka gaaraan. si kastaba haatee Soomaaliya heer noocaasi ah miyay gaari kartaa muddo intee le'eg ayay ku gaari kartaa? maxayse tahay caqabadda ugu weyn ee hortaagan in Soomaaliya horumar noocaasi ay gaadho amaba ay higsato? Soomaaliya heerkaasi way gaari kartaa muddo gaaban ayayna ku beegsan kartaa, laakiin waxaa hortaagan qabqalafsan, qabyaalad qaawan, qarbud iyo khasaaro u barayr kuwaasi oo ku lifaaqan sadbursi dhuleed. qabiilka ayaa waxa had iyo jeer lagu tilmaamaa inuu yahay sida basasha oo kale, taas way ka dhigan tahay in sida basasha uu dhilmo amaba uu kala qoqobmo. cilmi baaris caalamka laga sameeyay ayaa waxa lagu sheegay in qabiilku uu yahay qofka goorta uu abtirsanayo isagu uu qadarin 100% buuxda uu hayo kaliyeeto nafsadiisa, tan aabihiis iyo tan awogii koobaad. wixii ka dambeeyana waxaa la sheegaa in haba yaraatee wax qadarin buuxda uusan u haynin qabiilka ama abtirka waxa halkaasi ka dambeeya waa awogoo koobaad. waxaa la sheegaa wixii halkaasi ka dambeeya inuu yimaado hinaase, loolan iyo sidoo kale kalgacayl la'aan ama kalgacayl darro. marka haddii xaalkii uu sidaasi uu yahay, maxay soo kordhinaysaa dhaqanka qabyaaladda oo aysan dhici karin inaad 99.9% aanad aqoon u lahayn ama baadan aqoon u lahaan karin qof kasta ee aad abtir wadaagtaan, kaasi oo keliya aad ka doogsatid inaad wadaagtaan awowga 10aad, awowga 15aad, kan 20aad iyo wax ka koreeya. dhanka dhulka waxaanu ognahay cimriga qofka bini'aadanka inta uu la eg yahay, dhulkana qofka waxa uu ka dhimanaya isagoo marnaba aan dheefsan. 2,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah oo qalalan waxa ku dhaama 20 mitir oo dheef leh. dhulka waxaad ka tagaysaa adigoon marna dheefsan, waxaadna sidoo kale aad ka tagaysaa wiil amaba gabar faqri ah oo aanan sharaf ku noolayn. sheegasho dhul ballaaran noloshaada waxba kama bedelayso, waxaadna ka dhimanaysaa isagoo sidiisii uun ah dhulkii cidina aynan intifaacsin, waxaadna ka rabaxaysaa adigoo sabool ah. qof kasta oo Soomaali ah maanta waxa uu leeyahay dhul ballaaran oo baaxad weyn. dhulkaasna haba yaraatee kuma qabo wax nacfi amaba dheef ah. marka haddii arrintaasi ay sidaa u jirto, waxa habboon had iyo jeer in Soomaalidu ay dib ugu laabtaan waxa kala qaybiya. waxaanu ognahay waxa ugu weyn ama cunsurka ugu ballaaran ee Soomaalida maanta kala qaybiya inuu yahay qabiil iyo weliba dhul. mar haddii arrinta ay sidaasi tahay, dhulka ballaaran ee Soomaalidu ama shakhsiga Soomaaliga uu sheeganayo haba yaraatee oo dheef weyn uuna ku qabin, waxa habboon inuu dib u eego uu weliba barbardhigo dadka dhulka yar ama magaalo yar ay degan yihiin dheefta ku helo waxay uga duwan yihiin dhul ballaaran oo intaasoo kilomitir square oo haba yaraatee wax dheef ayna ku qabin. taasi hadday timaado, Soomaalida waxay ka dhaxlaysaa kalgacayl, isjacayl iyo weliba iscafin.